واتهاي سؤال هذا ميل ولبا أدوك دعلدي ساعات كشوكتان حسن كي شري إيه حسن كمانتي محيكو كلا دويهين فرق النوعية باود حية سلام إذا حسن شري وحو ديدنا أو كسوهر تشيدي أو ديدنا إن قاب كاس الله سبيه هي وحا مانتو أو وضو أو قعنتي سكو قريو محيكو كلا دويهين انت أنا نحكت إيش الرحاد قد قلين مغال كان سي شير قريه برتيدا فيسبوك أنا سوف لو قريه برتيدا يوتيوب أنا سبسكرايب تلدع أركتي هذا كومنتي كنقول وذاك مغال كان أداوتين ومدحوينها الصومالية حسن الشيخ محمود لكن حلي كان ومغال كان دوبيو وحافل الصومالية تشوقي دلك الصومالية وأرميي مدحوينه السجالات الجمهورية الفدرالية الصومالية محمد عبد الله فرماجو بالسما أنت وحا تشوقه حسن كي شري سيدان لها فرق ودحية لبدا حسن محيهين waxaad arkayseen muuqaal uu leeyahay xasan sheekh maxamuud farmaajo wuxuu rabaa doonayaa ka shaqaynayaa doorashadii uu ku soo bixi lahaa taladeeda waa noo diiday fikirkeeda waa noo diiday jaangoynteeda waa noo diiday midda socotana asaga ku soo baxaya taasoo aan ogeyn farmaajo xilligii doorashooyinkii hore ee Soomaaliya waxa uu ka shaqaynayay xilligaas waxa Soomaaliya doorasho ka qabtay guddigaas waxay ahaayeen guddi ay soo xuleen oo ay taladeeda wax ku leeyihiin oo waliba miiskii lagu go'aaminayay ay wax ka gooyeen dhammaan madaxda Soomaaliyeed haday noqoto saamiley haday noqoto madaxda maamul goboleedada iyo haday noqoto madaxweynihii xilligaas joogay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan ogeyn guddigaas inay qabteen doorasho ودورشة سؤالي تي برلمانكا هي تي مدحوينها الصومالية وحنا وجين إن لغات ترتمي وحنا وجين إني أقول عضي سي حر حلالة سيداسنا أي كلفتي إنفرماتش حلك بنيو حنس الشيخ محمود وحلك فريستو سيداسنا وكوي هاي هذا ده اللي تشوفه مدحوينها الصومالية ما أنت مركب حاجة حاسة ما أنت الصعودة فرق يقول حي لبض حسنا هي حسن ما أنت وحو وضع قرشاء waxaan qabanayaa doorasho qof iyo cod waxaan ognahay doorashadaas inaan loo dhamayn waxaan ognahay guddiga la dhisay ee uu yiri xasan sheekh maxamuud waxay qabanayaan doorasho waliba waxay qabanayaan doorasho qof iyo cod inuu gacantiisa ku soo tolay oo gacantiisa uu ku soo sameeyay oo gacantiisa uga dhawaaqay taas bedelkeeda wax tala ah iyo tusaale iyo fikir iyo aqli intaba aan laga siin madaxda maamul goboleedada iyo saamileyda siyaasadeed ee raba inay kursiga xasan maanta uu ku fadhiyo ay ku fariistaan hadhiin Puntland hadhiin Jubbaland hadhiin Galmudug iyo dhammaan madaxda maamul goboleedada oo diri xasan wuxuu wadaa marka guddi oo ku sheegay inay qabanayaan doorasho waxa uu tolayaa maradii oo uu ku tolayaa harqaankii uu ku soo bixi lahaa madaxweynaha Soomaaliya mar kalena uu ku noqon lahaa madaxweynaha Soomaaliya labada xasan marka فرق ودحية وسيداس وحنا في عن وليب حل جان لتشوجو وناكسن حسن وحو وضو إن السنهاين وحس عنه لو ذا تشوجو قف كستنا واركيو وحتى ياتي وكسب حلها وعشرين ياتي وكسب حلها وحرادين ياتي وكسب حلها وحبادي جوب يا قابك ومضى الصومالية وكرجين لها وحنا نقول هاي بتلان ماشي تشوكته تصاعه إن يرادين حسن وحو وضو waxa ummadda Soomaaliyeed u dhantay waxa ummadda Soomaaliyeed u wada dhan yihiin maahan si lamid waxaan ognahay Jubbaland wixii ka dhacay taasoo ah dagaal taasoo ah doorasho waxaan ognahay Axmed Madoobe oo isku caana shubay inuu ka soo horjeedo waxaan taas ka duwaneyn oo ummadda Soomaaliyeed xasan uu ku kala geeyay baa waxay tahay in madaxdii maamul goboleedada marka laga reebo Puntland inta kale inay ku joogaan sharci darro haday noqoto Galmudug haday noqoto meesha la yiraahdo Jubbaland haday noqoto koonfur galbeed haday noqoto hirshabeelle iyo haday noqoto dhammaan maamuladaas aan soo sheegay haddana wuxuu leeyahay jooga uu ii fadhiyo waxa la joogaa oo ka dhamaaday xilkii sharciga ay u lahaayeen balse maanta waxa ay ku joogaan si sharci darro ah xafiiskana waxa ay ku fadhiyaan si sharci darro ah laakiin doorasho iyo ma garanaysaa mid ay ku soo noqon karaan iyo mid xataa madax kale ay ma garanaysaa lagu soo dooran karo midnaba kama jirto asagii baan doorasho ogolayn madaxdii maamuladuusan u ogolayn gudi lagu kalsoon yahuusan samayn sidee marka uu rabaa inuu xasan sheekh
doorasho ku qabto intaas markaan ka gudbo qodobka kale wuxuu yahay xilligii farmaajo waxaan ogeyn in la aas-aasay waliba ay kamid ahaayeen dalkii Soomaaliya in khalalaase lagu galiyay xasan iyo kuwii la halmaalay wixii lagu magac daray badbaado qaran kuwaas oo watay qoryo watay hub watay ma garanaysaa saanad military iyo mid dhaqaalaba wuxuuna xasan sheekh xilligaas bixiyay erayadii caanka baxay ee ahaa farmaajo soo bax iyo farxaan oo dhiiqa lagu jirtaa iyo dhiiqa lagu garahooya ka soo noqo igaarkeygiyo maanta maxaa dhici doonta xasan oo soo bax mucaarad dhihi kara oo kalifi kara ma jirtaa mise ma jirto maya mucaarad abaabulan oo dhisan oo isku fikira oo isku aqliya oo isku aragtiya oo xasan ka hor imaan karo bataata maanta ma jirto xasan ninka la yiraahdo Sheekh Shariif iyo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo ninka la yiraahdo Khayri waa gaar farmaajo asna waa gaar Saciidani asna waa gaar Axmed Madoobe asna waa gaar waa kala gaar nin kasta waxa uu raadinayaa yani aragtidiisa inay soo baxdo waana mid maanta ka laftay xasan inuu wado qorshe halisa oo Soomaali ku kala tagi karto waa mid kale oo ka laftay inuu xasan sheekh ka shaqeynayo doorashadii uu ku soo bixi lahaa oo uu ku soo noqon lahaa midda u sahashay inuu waxaas oo dhan sameeyo midda u sahashay inuu dalkii Soomaaliya burburiyo midda u sahashay inuu saamileydii siyaasadeed kala geeyo waa mucaaradkaas kala qaybsan oo qaybo gooni ku xiran tahay qayb kalena gooni ku xiran tahay muuqaalkan si share garee meel fog gaarsii inta barnaamij noocan mid lamida ku kulmi doono Ibrahim Culamood la sidaasiyo nabadgelyo